1956 miilaadiga magaciisa oo buuxa waa Abu al-Hasan al-Mas'uudi waxa uu caan ka dhex yahay bulshada Carabta waayo waxa uu ahaa socdaale iyo taariikhyahan weyn oo Carabeed waxa uu qoray qoraalkiisa caanka ah ee uu magac daray beeraha dahabka iyo macdanta luulka waxa uu faafiyay jidadka ay adeegsadaan doomaha Carabta ee ku socota xeebaha Soomaalida ilaa Soomaaliya oo South Africa waxa uu tilmaamay magaalooyin gaar ah oo dad muslimiin ah ay ku nool yihiin oo ku yaala xeebta Soomaaliya waxa kale oo xusay in magaalooyinka Soomaaliyeed ay yihiin xarumo ganacsi oo laga dhoofiyo falmaroodiga macdanta qaaliga ah iyo xoolaha nool ninka saddexaad ee idinku xijin doono waa al-Istakhri magaciisa oo buuxa waa Abu Ishaq al-Istakhri waxa uu qoray buugga la yiraahdo al-Masalik wal Mamalik buugga wadooyinka iyo boqortooyinka waxa uu ninkani sameeyay khariirado juqraafiyadeed oo duug ah waxa kale oo uu kaydiyay sawirro hore oo ku saabsan dunida Islaamka iyo gaar ahaan kuwa ku saabsan Soomaaliya waxa uu tilmaamay oo calaamadiyay wadooyinka ganacsiga ee isku xira Carabta iyo Bariga Afrika waxa uu si gaar ah u xusay dekedaha iyo